dadka deegaanka Cada Kibir ee gobolka Galgaduud oo maalmo ka hor weeraro qaraxyo ah ay ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab ayaa isku abaabulay hubkoodan u qaatay inay la dagaalamaan kooxdan diidan nolosha qof kasta oo muslim ah. bismillaahi rahmaani rahiim anuu afara kala gali maayo sideeta isla jooga maqlaysaa waxa diyaar u ahay inaan qawris la diriro waxaan diyaar u ahay inaan jannah raasado warbeer ma sheegaynaa waryaa been la sheegin hadda marka wax noo bannaan oo inaan dirirna ahayn total ma harinba inayna dilaan inaan dilaan waxba ka dhaxaynba ayagaana dooray anagu ma aanan doorin deegaan dhan oo ballaaran oo 200 kilomitir isku wareegsan qof dirirayda ba joogin guriga gub ceelka gub astaanada rid shaqada waa weyn maaha in waxaas loo okortana diinta islaamka ee dadnimada badbaadiyay ka yihiin in la dhinta waa waajib muqaddas ah kaasa noo ballan diinta waataan ka baxa inaan waxaan asaga hayno iskaga dhacay inay seejir hada wabillahi tawfiiq gudoomiyaha deegaanka Cada Kibir Daahir Ugaas ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Cada Kibir aysan sugi doonin weerar dambe oo uga yimaada dhanka Al-Shabaab balse iyagu ay ku weerari doonaan meelaha ay ku sugan yihiin dadkan aad u jeedaan maalmo ka hor waxay ku noolaayeen deegaan nabad ah oo nolosha caadiga ah oo ibn aadamka aasaaska u ah ay ka jiraan oo biyaha iyo maxaa la dhahaa isgaarsiinta nimankii sharwadayaasha ahaa ee nolol diidka ahaa ee diin diidka ahaa ee dadnimo diidka ahaa ayaa waxa ay bideen wax qof insaan ah runtii aysan ka suurto gali karin ayay ku sameeyeen oo ah ceelkii biyaha ay ka cabi jireen dad iyo duunyo inay ka dumiyeen isgaarsiintii oo ayada markii la fiiriyo biyaha aan wax ay ku taalaba aan la arag in kasto nolosha hadda ay ku xiran tahay in wax lagu kala gato isgaarsiinta meel kasto ay tagaan aan uga daba tagno isqarqaris waa dhamaaday dadkan waa dadkan naf iyo maalba dhaafideen waxaad u diyaar garowdaan rasaasta qoryaha ay wataan afkooda ka soo dhacaysa insha Allah